وانكو السلامي داودي halkani waa Haga Academy ku soo dhow 10 keenii lixaad ee software keenii Photoshop 10 kan 10 ka horeeyay waxaan ku baranay qaabishinka sawirada boorarka looga jaraya backgroundka sida la isku geynayo sida sawirku aadan loo fiirinayo iyo opacity-ga iyo waxyaabo badan oo la mid ah ayaan ku baranay 10 kan waxaan sameyn doonaa insha Allah boorkan yariiska boorkan xagga aad ka muuqato boorkan aad arkaysa ayaan sameyn doonaa waxaan la fargeed doonaa waxyaabo badan ay ka mid yihiin textigii shapeskii waxyaabo badan oo differences oo kala duwan ayaan la fargeed doonaa haddii shadows ahaan lahaayeen haddii shapes ahaan lahaayeen yacni markaan workspace ku shaqeynayno waxyaabo badan ay arki doonaa haddaba 10 kan ayaan galeynaa hore u guda galeynaa haddii la yiraahdo soo raac وهاجاك داودي waxaan hore u guda galeynaa sameynta 10 keenii waxaan tageynaa oo aan ka bilaabaynaa hawsha open maanta waxaan tusayaa qaab cusub oo sawirada u soo gashan karta sawirro badan markaad u baahan tahay qaybtan waxaan tageynaa faylka aad tagaysaa kadibna sawirada meesha ay kugu jiraan aad tagaysaa aniga waxay igu jiraan downloads ay igu jiraan sawiradan waxay igu jiraan downloads hada tagto qaybta dejinta ay igu jiraan qaybtaas aad ku dhufanaysaa kadibna haday sidan ku ayaan isku weyn kulli way ku dhibi doonaa sidaan ay ka yihiin oo kale small oo kale day ka yihiin sawirada ma arki karaysid dada magaca ku soo qoran si sawirada aad u aragto view tag kadibna large ku dhufo kadibna hoos soo raadi haddii aad course computerka aad u baahan tahay waxyaabahan uu ku jira generalka soo playlist leh hoos ayaan soo aadayaa kadibna waxaan u imaanayaa halkan 60 sawir ayaan doonayaa inaan wax ku sameeyo maantay 60 sawir ayaan qaadayaa 6doodaba anigoo haya control ayaan mid kasta dooranayaa kadibna waxaan qabanayaa right click kadibna drag and drop ayaan isticmaalayo 6 xabba ayaan istaadad aragto 6 xabba ayaan soo qaadanayaa Photoshop meesha iga furay taski barka ayaan la tagayaa kadibna waxaan dul geynayaa open ayaan dul geynayaa open markaan dul geeyo waxaad aragtaa dhamaantood inay soo wada furmeen gebi ahaanta way soo wada furmeen mid kasta haddaba intii baan loo baahnaa ama intii sawirran u baahnaa waan haystaa oo halkan way igu jiraan dhamaantood hadda waxaan u baahanahay document cusub oo waxaan ku hawshan ku qabto ama ku sameeyaan u baahanahay waxaan tagayaa file ayaan ku dhufanayaa barteeda ayaan ka sameysanayaa asagana new ayaan ku dhufanayaa new mana ku dhufto kadibna waxaan tagayaa waxaan sugayaa intuu iga soo baxayo daaqadii ama dashboardkii aan ku sameysan lahaa bannerka cusub aan ku sameysan lahaa bannerka cusub ayaan sugayaa sida markii ugu soo wax bannerka cusub waxaan tagayaa qaybtan ayaan tagayaa oo soo bixi doonta halkan hore ayaan u soo sameeyno waqti badan ku bixi mayno magac ayaan ku qoranaynaa magacan waxaan ka dhiganaynaa tusaale ahaan banner 21 ay 2 oo kale ayaan ka dhigaynaa portraitkiisa noo aha 360 centimeter noo aha halkan centimeter ka dhigo centimeter ka dhiga halkan cabirka markaas u baahanta boor ku sameynaysaa ka dhiganaysaa halkaana CMYK ayaan isticmaali doontaa haddii la daabacayo sawirka aad sameynayso doonaysa la soo daabaco CMYK aad isticmaali doontaa waa colorka printing-ka loogu talagalay kadibna create aad ku dhufanaysaa create marka ku dhufato document-igi noo abuurmayaan suginaa markuu document-ga sidan kugu soo abuurmo document-yada ka mid yahay kugu abuurno bannerka ayuu ku jira kadibna waxaan galeynaa balana document-gana hawsha ka qabano hawsha koodan qabanaynaa waxa weeyaan qaybta koowaad ee waxaan dhisaynaa loo yaqaan header-ka si aan u dhisno waxaan ka bilownaa shape ayaan ka bilaabaynaa oo haddii aan shape waxaan maranayaa shape inaad si fiican u fahansantahay shape waa kan shape-ka markaan tagno rectangle-ka midka aan u baahanahay markaas ayaan qaadanaynaa shape-ka markaan soo qaato waxaan geynayaa halkan kadibna qaybtaas u koreydaan sida ugu daraagareenayaan ku jiidayaa oo halka aan ku qori lahaa magaca oo aan magaco markasta boor aad sameynayso waa inuu magacu ahaada waxa ugu weyn ka fikirtaan magacan ay ahaadaan sida markuu ay ahaado qaybtan kore ay ku soo baxayaan qaybaha iyo wixii hawsha aan kaga qaban lahaa oo halkan waxa ka aragtaa fiilkani waa colorka uu ka buuxa dhamaantiis stroke waxa loo yaqaanaa colorka in geesaha bas uu ahaado oo san dhexda soo gelin halkan waa opacity-ga ayaa laga maamuli doonaa halkanna line-ka waxa uu noqon doonaa ayaa laga maamuli doonaa haddaba waxaan ku dhufanaynaa fiilka kadibna colorka aad jeceshahay aad dooranaysaa anigu waxaan dooranayaa colorka marka aad doorato kadibna aan dib isaga celsho kadibna colorka marka aad doorato sidaan uu ku noqdo kan waa kii u baahneed oo hadda caadi weeyaan uu ku sameeysan yahay colorka aad u baahneed waxaan u baahanahay kan labaad inaan sameysto laba waji way banaantahay midda koowaad oo ah inaan drag and drop aan sameeyo
oo aan wax drag-gareeyo ku jiido way banaan tahay iyo inaan sidoo kale aan mid asagoo kala samaysto iyo inaan kala fikinta tago aan control J iraado control J ayaan oranayaa ama halkan ayaan ku dhufanayaa kadibna duplicate layer ayaan oranayaa oo halkan ayaa magac kale ku qoranayaa markaas haddii warna inuu copy-gii samaysto kood kan hoose weeye midkaan u baahanahay kan hoose ayaan click siinayaa fiiri qaybtan oo waxaad fiirisaa ilaahay kuma soo diiday layerska kan hoose ayaan dooranayaa oo midka hoose ayaan u baahanahay kadibna si aan magaca uga shan colorka uga bedelo isla shape ayaan ku dhufanayaa isla kii ayaa soo baxaya kadibna waxaan tagayaa halkan kadibna colorkan ayaan qaadanayaa jaalaha ah sida marka uu yahay hadda ma haysto wali ima doora oo ma aragtid kama aragtid oo maxaa yeelay wuxuu ku aadan yahay layerkeedu ku aadan yahay waxaan qabanayaa falaarta qaybta hoose oo left down ka ayaan qabanayaa kadibna hoos ayaan u soo bixinayaa inta doonta hoos soo bixinaysaa sida markuu ugu hagaago kadibna waxaad ku qoraysaa magaca aad u baahnayd magaca halkan ayaa tagaysaa type tool ayaa la yiraahdaa type tool kan aad ku dhufanaysaa oo qoraalka loogu talagalay right click hadaan iraado waxa ku jira horizontal type tool ku jira vertical type tool ku jira vertical type mask tool ku jira horizontal type mask tool ku jira haddaba inuu mid kooda aan u baahanahay kan kooda aan ka qaadanayna maanta uga baahanahay kadibna meel dugminta ka mid ah click ku sii oo ku dhufo kadib markaad meel dugminta ka mid ah click ku sii oo ku dhufato markaad meel dugminta ka mid ah ku dhufato oo aad click ku siiso marka aan soo qaado kadib marka soo qaadato hadii uu halkan ka soo galay halkan waxa ku jira sidee loo daleeyda tusaale kan oo kale uma baahni uu iga qarsamay uma baahni sida awgeed waxaan sameynayaa halkan ayaan tagayaa ay ku qoran tahay trashka ayaan ku dhufanayaa kulliba trashka wada aragtaa trashka ay ku dhufanaysaa kadibna trashka ku dhufato halkan ayuu kaaga soo saarayaa wadaaqadan kale oo iska daleediyaas ah yes ayaan ku dhufanayaa hadda kan haysta ayaan dhiganayaa kadib marka dhigto hadda waxa aragtaan wid shaashadana ma isku aadiyay qoraalka ayaa aad u weyn waxa tagaysaa halkaas oo meeshaas ay ku dhufanaysaa ay ka muuqato tiidaas laba tiirka isku dhagan laba qaabayaad marka u gaabin kartaa in halkan qaybtan gasho kadibna aad drop down kaas ka xolato colorka qaybta aad u baahan tahay marka ama size ka aad u baahan tahay iyo inaad sidoo kale sidaan isticmaasho kan dhanka bidix u jiido dhanka bidixna u jiido inaad qabato dhanka bidix u jiido dabcan waa aragtaa sidoo u yaraanayo kolkasta dhanka bidix u jiido uu yaraanaya haddana dhanka midig u jeedo sidoo kale uu weynanayaa dhanka bidix ayaa u jiidaysaa kadibna waa iska yaranaysaa intaas kale aan ka dhiganayaa kadibna waxay noo ahayd muqaayadeenii oo tusaalahaan waxay noo ahayd waxaan noo qoraa baar igu filan tusaalahaan baar igu filan ayuu noo ahaa igu filanta ayaan iska qoranaynaa inta markaan qorto move toolka aan tegayaa kadibna waan qaadayaa halkaas ayaan geynayaa dabcan waxaa aragtaa markaan sii dhaweeyahay inuu hoos gelayo uu qarsoomay aragtaa si arrintaas uga hortagto waxa uga daba tagto ama u xaalaysa caqabadaas waxa fiirinaysaa qaybtan layerska kadibna kan ayaad qabanaysaa kor ayaad u jiidaysaa oo midka u koreeyad ka dhigaysaa ama mid kasta midka hoose kormarinaysaa hadda waad aragtaa sidii uu noqday hadda halka markaan keensado waxaan u baahanahay colorka aan iska bedelo waxaan sameynayaa colorka ayaan tegayaa halkaas colorka calaamadu waa aragtaa inay soo baxayso color ayaa soo baxaya waxa soo baxaya alignmentigii oo alignka noocan raba ayaan ka dhigi karaa oo hadda noocan doono jimista dhaxaas ayaan hadda u baahanahay halkan waxa soo baxaya inaan wax badan darab dhown ay soo baxayo haddaan referna weynay dhamaan waa la fargeey doona binala kareem kuwana qaabka loola falgalo balse hadda waxaan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay ama ay ka muuqato shape-ka ama sawirka ama colorka ayaan tegayaa kadib colorka markaan tago waxaan soo qaadanayaa halkan kan waxa loo yaqaanaa aan aadi doona maantay waxa loo yaqaanaa markuu geeyo kan waxa loo yaqaanaa ismac blofiri waxa loo yaqaanaa dee la kuriyaa waa pen qalinkan marka waxa loogu talagalay inuu qoraalka markaas meel leh inuu ku soo qaado loogu talagalay markuu ku dooran yahay marka ka ayaan raadsanayaa asagaan soo qaadanaya kadibna kan ayaan dooranayaa fartidii waa aragtaa hadba kan doortay ii noqonaysaa haddaan cadaan ku dhufto cadaanka ii noqonaysaa haddaan ku dhufto kan marka colorka ayaa lagu soo qaataa isla markiina waxaa aragtaa qaybtan uu colorkiisa isbedelaya haddaan saan doorto calaamad waxay tegaysaa cadaanka ay tegaysaa marka kan ayaan u baahan inaan ka dhigto kan markaan soo qaato fartidii waan weynaysan karaa xoogaa haddaan u baahana waa ku darsan karaa anigoo halkan isticmaalaya wax yar ayaan weynaysan karayaa isla marka halkan ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay control T kadibna fartida ayaan isku gagaabsanaya oo isku hagaagsanaya kadibna fardan dad maahan aan soo weynayo kala waa soo weynaysanaya haddaan dhanna u jiido baana waa u jiidanaya adoo farta aan halkaas ku sasgaranaya ku dhamaysanaya isla markii qaybta qoraalka aan ka dhamaanayna waxaan qoraynaa qoraalkeeni kala ahaa ku soo dhaw cunto macaan oo kale waxaan qoraynaa ku soo dhaw cunto macaan oo kale ku soo dhawaaw cunto macaan cunto caafimaad tusaalahan cunto caafimaad leh cunto caafimaad leh ayaan oranayaa ku soo dhaw okay inta markaan qorto
waxaan sameynayaa isla sidaas oo ah control A ayaan oranayaa si wax dhan igu doormo kadibna waxaan sameynayaa farta ayaan iska yareynayaa oo farta ayaan inta doona ka dhiganayaa kadibna waan jiidiyaa halkaas ayaan dhigayaa halka marka aan dhigo waan ku weyninayaa farta marka xoogaa farta ayaan weyninayaa kadibna hoos ayaan usoo degayaa hadda waxaad aragtaa farteydii in ay yani ka hooseedo meesha u eg tahay waxa dhibka waxa keenaya waxa isku kalara fartii iyo shape-ka isku kalara marka farta ayaan ku dhufanayaa korkii aan tegaya markay saas ii noqoto halkan ayaan tegayaa kadibna waxaan u baahanahay isla kan ayaan u baahanahay kan ayaan ku dhufanayaa labada kalar ayaan ka wada dhiganaya waxaad ogaataa markaad samaynaysa boor markaas waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho colorayskaaga dhow ayaad u baahan tahay colorayskaaga dhow isticmaal control T de adoo left click ama adoo shift haya left click-tana haya xoogaas u jiid si farta aad kala durjiso marka xagga ugu durjiso hagaag haddii aad farta noocay taan iska bedesho farta markan aan hayla doorto double click iraado waxa arta halkan qayb ay iga soo baxayda halkan waa type-ka farta ay noqonayso haddaan drop-down-kaas ku dhufto waxa ay soo bixi doona fara aad u badan ay soo bixi doono oo aan ka dooro doono faraha aan u baahanahay markaas qaybtan ay iga soo bixi doonaan oo waad aragtaa farta aan u baahanahay ayaan ka dooranaya tusaale waxaan u baahanahay farda magaca farta magaca intaan ku qoranay waxaan leeyahay Italian tusaale waxaan leeyahay Italian ayaan leeyahay oo fartan ayaan u baahanahay tusaalahan fartaas ayaan soo qaadanayaa kadibna dib ayaan isaga celinayaa fartii aan u baahnahay hadda waan soo qaatay oo sidaas ay farta igu ekaatay kadibna control T ayaan oranayaa fartii wadaan rabana waan weyneysanayaa sideeda double click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay ii weyno intaas oo kale iga dhigay ayaan leeyahay kadibna hadda fartan xoogaa ay u weynaatay waxaan u baahanahay shape-kan in asagana xoogaa hoos soo durjiyo shape-kana control T ayaan oranayaa asagana qaybta hoose ayaan soo qabanayaa si xoogaa hoos u soo durjiyo si aan xoogaa hoos u durjiyo control T ayaan leeyahay kadibna waan soo qabanayaa fartan waan ku soo dhaweynayaa hadda waxaad arkaysaa fartii inaan qurxustay ku soo dhawow cunto caafimaad leh okay isla markaa waxaan u baahanahay qaybtan hoose shape-iska hal mar ka wada dhamaanaya halkan hoose in shape-geeyan u baahanahay wax kale ma sameynaya labadan shape ayaan soo qaadanayaa kana waan tegayaa kan kalena asagana hoosna anoo control ayaan dooranaya labadooda markaan doorto control J ayaan dhihi doonaa control J markaan iraadana labadooda waan soo jiida doonaa waan soo qaado doonaa ama inta kortaga ayaan soo dhufanayaa halkan ayaan la imaanaya waxaan u baahanahay labadan shape inaan midkan jaalaha ayaan soo kormariyo kan hoosna hoos mariyo sidee sameynaya jaalaha ayaan kor tagayaa kadibna hoos ayaan keenayaa jaalihii hoos ayaan kan hoos u dhaweysanayaa jaalihii waa aragta hoos kor ayuu soo maray kii kalena kor ayuu maray oo kor ayaan soo mariyay awood waxaan u leeyahay inaan markaas labadan shay labadoodaba inaan ka dhigo qaab ku nooc kala u isticmaadaan labadooda hal mar wada doorto kadibna markaan labadooda hal mar wada doorto control T ayaan oranayaa halkan waxaad aragtaa hal xaba ayaan markiiba dooran karaya sorry saddex xaba ayay wada doorantay uma baahan saddex xabo tusaale waxaan u baahanahay midkan kor ayaan u baahanahay kan kor markaan tago control T ayaan oranayaa kadibna calaamadan ayaan tegayaa oo afarigiis oo switch between free transform ay ku qoran tahay ayaan tegayaa calaamadaas ayaan tegayaa kadibna calaamada click ayaan siinayaa isla markaan click siiyaba waxa ii soo bixi doona markaan click soo siiyo shape-kaygu wuxuu yeelan doonaa dhowr meelood point-yo laga soo jiidi karaa iyo doolo yeelan doonaa kadibna point-ga aan u baahnahay ayaan tegayaa kadibna xoogaa yar ayaan saa usoo jiidaya kan kalena waan tegayaa isagana xoogaa yar ayaan saas xagga usoo jiidayaa kadibna waxaa ii soo bixi doona alaab yaroo qurxoon ayaa ii soo bixi doonta kadibna sax ayaan leeyahay tig ayaan saarayaa waad aragtaa shape geesaha ka soo go'an ayaa ii soo muuqday hagaag xoogaa waan wada sinayaa hagaag okay intaas bay igu daa hal mar control T de qaybtan ayaan doonayaa inaan hal mar soo gaabiyo hal mar ayaan qaybtan doonayaa inaan soo gaabiyo yacni adigu iska saxo adigaa iska saxan karaysid sida aad doonto ay u saxan kartaa markaas okay sidaas ayaan ka rabnaa shape-ka labada gees in xoogaa kala dheeraya moodaa adigaa siman kartid caadi weeyaan haddaan isla meesha haddaan iyadana ku tusiyo waqtigan dheeradan ka cabsanaya isla halkan ku noqonaysaa kadibna isla kan soo qabo xoogaa hoos soo dhig lebes marka xoogaa hoos soo dhig kadibna tigsaar sidaan waa haystaa hadda meelaan wax ku qoran karaan haystaa carri aan wax ku samaysan karaan haystaa hadda waxaan u gudagelayaa qaybta sawirada waxaan ku bilaabayaa kan halkan kule banalka ayaan ku bilaabayaa waxaan soo qabanayaa shape ayaan soo qaadanayaa shape-ka ayaan inta ku darowgaraysanayaa intoo kale ayaan shape-ka dhiganayaa shape-ka weeda color aad doonto oo la bixi aad ka dhigan kartaa muhiim maaha ama waajib maaha inaad color gooniya isticmaasha sidaa markuu shape-ku yahay waxaan tegayaa sawiradeeda ayaan ku noqonayaa kanoo kale
waxaan ku samaysan doonaa ama kan ayaan qaadanaya marka hore midka aan doono aan ku soo hormar ayaan qaadanaya kan ayoo kale raba inaan qaato shaybkan hadda uma baahna in la sameeyo wax oo de la kuran yahay oo background laga jaro kadibna waxaan sameynayaa waxaan ka qaadayaa log aan ka qaadayaa kadibna waan iska jiidinaya waxaan ku raadsanayaa bannerkaygii bannerkii waa kan xaggan iga soo xiga waa kan bannerkan dhex imaanaya kadibna waan dhigayaa markaan dhigo hadduu soo weynaado waxaa iska gaadaysa control minus ayaad qabanaysaa kadibna kan ayaad iska soo gaabinaysaa there is no problem waxa uu cillad weyn kuma jirto kadibna iska soo gaabinaa kadibna halkaas ayaan dhiganayaa control 0 soo dhaho iska gaabi halkaas ayaan dhiganayaa halkaas oo kale ayaan dhiganayaa kadibna stick ayaan saaranayaa xoogaa ayaan xagga usoo dujinayaa halkaas oo kale aan dhiganayaa okay haddana waxaan raadsanayaa kii kale ayaan raadsanayaa kan waan samaystay waan iska deleedayaa suusa meesha iga buuxin iska delete kan ima haddana kan laftirkiisa control 0 soo dheh kadibna waxaad samaysaa wax uma baahna inaad meel ka jarto uma baahna kadibna sidiisa u qaada asagana bannerka ku raadso waa kana bannerka leemow isagana soo dhigo control T dheh taas waa soo aragnay si aan resize-ka loogu sameeyo filayaa shape-ka si resize loogu sameeyo waa soo aragnay kadibna halkan oo kale ayaad dhiganaysaa halkaas oo kale dhigo kadib kan kora ku tag hal mar aan soo wada dhigta ayaga hal mar ayaan wada hagaagsanayaa dhamaantood kana kale oo isagana ka qaad calaamadda kadibna soo jiido drag soo sameeyay marka ka qaado looga marka ka qaado soo daragarayso kadibna waxa ku raastaa shape-ka ku raastaa bannerkii ku raadso where's banner waxa dad magacyo la soo kala baxday way ku fudaanaysaa saad ku heshaa marka magacyo la soo kala bax anagu waa iska boobsiinayna magacii midna haddii si aad bannerka weydo control A dheh control Z dheh haddana markaas waxa waaye waa copy kadibna bannerka waa kana control V ku dheh kadibna control D dheh marka control T tiraado kadibna drag and drop ku samee iska soo gaabi sida marka iska soo gaabiso dhanka kala dhigo qaybta kala dhigo iska soo wada gaabi okay inta marka samayso oo soo qaybta kala ku yaalo dabcan hadda waxa ay hartaan filayaa hal qayb kan waan soo qaatay waan iska dileedayaa si sawirada dhootiisa iga qarsoon haddii magacyo ku leeyahay waa caadi magacaad ku raadsan doontaa wax dhiba ma keeni doonto kan asagana waan u baahanahay kama tagay waan iska bartisan u deysanaya hadhow soo noqon doona kan u imaanaya asagana log aan ka qaadaya kadibna sida dragging ayaan ku sameeynaya oo waxaan ku raadsanayaa kii bannerka ayaan ku raadsanayaa asagana sidoo markii kale aan sameeynayna haddaan ku weyno haddaan bannerka weyno sida kii oo kale aan sameeynayna haddaan bannerka weyno waa kana control A control C aan iskan raahno no problem kadibna bannerkaaga tag control C ku dheh kadibna control T dheh geeska soo qaba ku yareeyay markaa waa yareynaysaa soo jiida halkan dhexda keenso si yare sida markaa u yareyso asagana halkaas soo dhiga asagana dabcan markaan ayaan arrangementigii sameynaya iyo isku hagaajintii kan ayaan imaanaya control T dheh mid kasta korkiisa tagaysa kadibna control T dheh kadib iska yaree halkaas oo kala dhig kana u imo laftirkiisa control T dheh double click ku siyaalo mar control T okay waa kaas layer 4 aan jooga control T kadibna asagana iska gaabi halkaas soo dhig sida markuu yahay shift qabo kadibna qaybta kor qabo kadibna kor jiid markaas xoogaa kor jiid ilaa halka gee kana waa kadib geey doona shift qabo kor jiid ilaa markii shiftida siida hagaag meel banaanta kadib kana waa asagana control T dheh shift qabo qaybtaas kor qabo kor jiid markaas asagana halka marka geeyso intaas qaybtan kala tagadana control T dheh shift qabo oo soo jiid markaas asagana oo soo jiid xoogaa yar gaabi arrangementiga iyo design-ka sida aad ku design garaystay weeyaan kan oo asagana marka uu timaado asagana control T dheh kadibna hoos soo jiid shift adoo haya xoogaa yar xagga u durji xoogaa yarna isku gaabi wax yar hagaag xoogaa hoos soo jiid guli baa soo dar kan noqo kan oo asagana control T dheh control T dheh asagana kadib marka control T tirada soo qabaasna hoos soo jiid xoogaa yar geeskana xoogaa u bixi okay labadan hoos ayaan hal mar wada qabanaya marka hal mar ayaan labada hoos wada jiid doona control aan qabana
kadibna keliga ayaan isku sii doonaa banaanka tag kan taabo control qabo kan kalena taabo asagana raadi waa layer 4 iyo layer 2 halkan waa ka dooran kartaa ayaga marka layer 4 tag asagana kan iska shift isticmaal wariga la control isticmaal looda markaas control T isla dheh kadibna gees qabo looda hal mar kor wada jiid markaas hagaag hadda marka meeshan ishiya kana ka baxay okay hadda marka isku toosan tahay hawshu nidaam ayuu u taagan yahay waxaan u baahnaa kii dhexdaas aan soo gelin oo baahna marka halkan aan tagayaa kan ayaan soo qaadanayaa control C soo dheh bannerka ii keen halka ku dhufo kadibna markaas iska gaabi control T dheh halkan mouse iska soo gaabi asagana iska yaray aad ayaa la rabaa asaga in loo yareeyo waayo waxa la rabaa dhexgelisho mid kale ayaa la doonaya dhexgeliya la doonaya kadibna iska gaabi halka iska dhigo halkan ka bax shape iska tag kadibna right click dha waxa soo furataa shape ellipse soo furo shift qabo si uusan kaaga wareegin oo kaaga kala dheeraan kadibna drag and drop dheh sida marka u taagto shape-kaaga markasta aad shape fill-kiisa u buuxo haddii shape fill-kiisa uusan buuxin hawsha wax ma qaban doono shape-kaaga sida marka ku yahay marka waxaad tagtaa move tool-ka tag kadibna soo jiido marka waxaad u baahan tahay ellipsiga la rabaa inuu hooseeya la rabaa oo sawirka aad kor jari doonto oo soo kor maro meeshan waxaa loo yaqaanaa sawirka la rabaa sawirkan la dhexgeliyo oo waxaa rabaa labadooda in click and mask in la isku sameeyo labadooda dhexgelisha la rabaa hadda marka waxaan tagayaa layerka ayaan tagayaa kadibna right click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay halkan ayaan tagayaa waxaan leeyahay create clip mask si fiican u eg create clip mask ayaan ku dhufan doonaa layer maskiga ayaan tagayaa layerkiga ayaan joogaa u jeedaa kadibna waxaan tagayaa layer maskiga ayaan raadinayaa eclipse-ga anoo jooga ayaan waxaan tagayaa halkan ku qoranta layer style-kaas ayaan ku dhufan doonaa layer style ayaan ku dhufanaa layer style markaan click siiyo waxaa ii soo bixi doonaa markaan click siiyo layer style halkan stroke waxaan dooran doonaa marka waxay optionada ii soo bixi doonaa ka dooran doonaa stroke ayaan ka dooran doonaa stroke ayaan ku dhufanayaa kadibna stroke aan ku dhufto halkan iga soo bixi doonaa bannerkan ayaa la keeni doonaa daaqadan ayaa la keeni doonaa kadibna waxaan la baxayaa size-ka markaas stroke oo kale intaas oo kale aan ka rabaa color-kana waxaan ka dhiganayaa color-ka markaas aan u baahanahay ama anugu jeclahay color-ka adigu aad jeceshahay ka dhigo anugu color-kaas ayaan ka dhiganayaa layer maskiga waxaan dhihi maaga stroke-ga kadibna size-kana intaas ayuu yahay hada bila tawfiiq kadibna okay aan oranayaa kadibna intaan ayaan saan soo qabanayaa kadibna soo jiidayaa halka dhexda oo kale ayaan dhigayaa meeshaas kale aan dhigayaa control T ayaan oranayaa kadibna waan yareynayaa ogaa yareynayaa halkaas ayaan dhigayaa inta markaa kugu samaysan tahay tusaalahaan kor oo kale aan u qaado hal mar kor oo kale aan u qaado hagaag halkaas intaas marka ay samaysan tahay waxa ay dhiman marka qaraha iyo halkaan aan soo dhigto ayagana qaybta qaraha ayaa dhiman kan waan iska dileedayaa asagana qaybta qaraha ayaan tegayaa okay kan oo kale ayaan haystaa dabcan waxaan u baahan inaan ka jaro markaas background-ka aan ka goynayaa saa markaan ilaada qaybtan hoose iga raacaya wad ogtahay sida loo xalliyo hore ayaan usoo sharxay oo hadda waqti badan ku bixin maayo waxaan tegayaa qaybta minuska kadibna waan ka jarayaa oo waan ka reebayaa qaybtaas hadduu kaa raaco waa ka reebaysaa hadduu qaybta kaaga qaldanto balaaska doono kadibna markaas ku dar markaas waxaad oranaysaa kadibna waxaan leeyahay logga ayaan ka saarayaa kadibna waan ka noqonayaa halkaan oo kale ayaa wax ku hareen oo ujeedaa waan ku dhufanayaa kadibna waxaan tegayaa tusaale ahaan magic wand toolkiga aan ku dhufanayaa kadib okay aan leeyahay waa tirayaa waan u celinayaa meel kastoo le waan ku raadaa waa iska tirayaa meel kastoo le gaag qaybtan kaloo kale iyadana waxbay leedahay waan iska tiraa qaybtan kale iyadana waxbay leedahay waan iska tiraa waan iska sii dhammaynayaa ma doonayo wax oo haraadiyo iyo midna lama rabo sidaa markuu yahay kadibna waxaan leeyahay move toolkaan tegayaa waan qaadanayaa bannerka aan la tegayaa halkan ayaan soo dhiganayaa control T ayaan leeyahay waan iska yareynayaa isagana kadib waan iska yareynayaa halkaas oo kale ayaan dhiganayaa marka halkaas oo kale ayaan dhiganayaa hagaag sidaa markuu yahay waxaan raadinayaa kii kale ayaan raadsanayaa waa kana isagana sidoo kale waxaan tegayaa halkan waan ku dhufanayaa kadibna backspace aan oranayaa marka log ka qaado backspace qaybtan kale wax ku haran ujeedaa iska sii tiraya iyadana okay saxanka bas ayaan u baahanayaa xataa hooska hoose ma baahni
waan iska qaadaya iska qaranaya isagana intaan markaan saas haysto hadda nadiif ayuu ileeyahay sorry waxa baxay qayb kamida kan ayaa baxday waxaan sameynaa waxaan tagayaa qaybta waxaan tagayaa quick selection toolka kadibna minuskiisa ayaan tagayaa kadibna qaybtan waxaan leeyahay iga qadan leeyahay oo looma baahna qaybtan aad ku dhijidaan oranaya baalka afkaas kore waa inuu ahaadaan oranaya waan iska sii qaadaya si fiican fiidiga u daawo kadibna halkan ayaan tagayaa kadib waxaan tagayaa magic one toolka aan dib ugu noqonayaa kadibna qaybahan hoose ayaan dooranayaa iyagana iska tirayaa qaybtan hoose aan imaanayaa iyadana waan iska tirayaa inta markaan haysto qaybtan ayaan sii tagayaa iska sii tirayaa hadda waxaan maleynayaa inaan meel nadiif haysto deselect aan leeyahay kadibna halkan ayaan move toolka ayaan tagayaa isagana waan qaadanayaa bannerkayga ayaan la aadayaa halkan soo dhiganayaa kadibna control T ayaan leeyahay waan yareynayaa isagana waan yareynayaa isagana waa iska yareynaysaa marka iska yareyso isagana xoogaa iska sii yareynay halkaas ayaa soo dhigaysaa isagana markaas halkan shift qabo xoogaa kor u qaad okay halkaas ayuu ku qurxoon yahay hagaag hadda waxaan moodaa xoogaa yar ina wax yar oo qurxoon aan sameeyno xoogaa haddii aad doonto labadan soo kala kor mari kan hoos mari haddii aad doonto layer kan hoose kor mari si ay isu qariyaan layer 6 kor mari xoogaana soo jeed hagaag hadda waxa moodaa xoogaa wax yar oo qurxoon noo sameeysan yihiin waxa noo dhima halkan sawirka iyo koolka aan soo gelino noo dhima kaliya ayadana waan soo gelinaynaa waxaan tagaynaa halkan kadibna meesha uu kool ku yaala ayaa tagaysaa waxaan tagayaa aniga pictures ayuu ii yaalaa meeshii uu ku yaala ayaad markaa doonanaysaa adiga meesha aad ku ogtahay ama wax ku yaalaan ay kaa soo qaadan doontaa waxaan tagayaa pictures ayaan tagayaa okay kadibna waan raadinayaa markaas waxaan raadsanayaa hadda waxa waaye koolkii inaan soo helo pictures ayaan tagayaa what is this pictures kadibna hoos ayaan u raadinayaa koolka xagaag waa kan ayaan soo qaadanayaa waan wataa halkan ayaan keensanayaa kadibna background ayuu leeyahay backgroundka ayaan rabaa iska jaro tricks badan ayaan ku fahansiinayaa tricks badan ayaan doonayaa inaan ku fahansiiyo halkan meeshaan isagana backgroundka iska go ka qaad looga kadibna backgroundka iska jir backgroundka jirta cadaankiisa waa ku qaadan kartaa haddii cadaanka aad rabin maxaan sameynayaa marka hal mar aan soo dhaweeyo haddii cadaanka aad rabin waxaad sameynaysaa halkan tag kadibna waxaad soo qaadaysaa polygonal toolka ayaa soo qaadanaysaa ayaa soo qaadanaysaa kadibna waad ku sawiraysaa waa la raacaysaa meeshii si aad meeshan sawir uu kugu qabto ama uu kugu qabto markaas kugu qabto color kale uu kugu qabto ayaad la raacaysaa malahan kanu meel oo laga jara malahan haddii la ku roon yahay sida oo illustrator kala maahan illustrator wuxuu leeyahay meel aad wax kan dhan ka dhigaysid shape kadibna aad color ku shubanaysid kan haddii aad rabto color waad dooranaysaa inta aad rabto color ka siido saas haddaan u dooranaysaa adigoo iska ilaalinaya qaybta cadaanka inaad soo gasho ayaad dooranaysaa qaybta cadaanka inaad soo gasho iska ayaad dooranaysaa sidii marka adiga kula qurxoon ayaad u dooranaysaa markaas muhiimaddu design-ku waa caqli haddii xirfadda bas aa fahanta kaliya adiga ayaad markaas nooca doona u samaysan kara waxan haddii uu kaa qaldamo backspace taabanaysaa kadib inta markaan sameeyo oo ujeeda hadda color aan leeyahay kadibna waxaan tagayaa halkaan ay ku qoran tahay waxaan tagayaa brush toolka aan tagayaa brush tool ayaan tagayaa maanta kaliya brush toolal badan ayaan baranay la soco maanta brush toolka aan tagayaa brush toolka maanta colorka meeshan kale ku jira ayuu igu shubi doonaa meesha waxaan iska weynaysan doonaa inta size-ka ayaan iska weynaysan doonaa si hal mar aan ugu shubo kadibna waan qabanayaa waan ku shubayaa markaas waxaa aragtaa inaan size meeshan ku shubay kadib markaan ku shubo mid ayaan samayn karaa kadibna deselect ayaan leeyahay waan wada qaadan karaa labadooda hore ayaan u dafayaa haddaa rabtiin waxaa qaadan kartaa kaliya midka oo colorka aad sameeyay qaadan kartaa bas halka markaan keeno control T ayaan leeyahay labada gees ayaan ka gaabinayaa halkan waxaan leeyahay control 0 degmentiga soo hagaajiyo control 0 ayaan oranayaa kadibna waxaan leeyahay dhawee halkaas ka markaan geeyo ayaan soo qaadayaa waan isku toosinayaa xoogaa halkaas kale ayaan dhiganayaa kan design-ka adiga ayuu gaar ku yahay okay
documentigii markaas marka u yahay meelaan kalik siinaya kadibna qoraalka bas ayaa ii dhiman oo markaas wixii aan u baahanahay markaas oo number ha ayaan ku qoranayaa jalaan dee la kurin 6 hal 7 eber 4 84 oo kale ayaan ku qoranayaa hadda number whatsapp u baahantahay ku qoranaysaa farta styleka nooca arta kaga bedelan kartaa kadibna meelahaas oo kale iska dhiganaysaa ku haagsanaysaa design noocaan oo kale samayn kartaa intaan ku soo gabagabeenaya marka design-kan soo samayso ama mid ku qurux badan samayso haddii aad doonayso in checking laga mariyo ama aan ka check-gala jeclaan leedahay meel iga soo xiriirto isla numberkan igala soo xiriiri doontaa eber 488 weeyaan eber 488 kanta ka maqan okay numberkan oo kale igala soo xiriiri kartaa wixii marka faahfaahin dheeri oo kala duubaanta oo kale haddii aad design sameeyo u baahantahay design-kaas in aan checking laga marsho oo kale halkan waxaan baran doonaa bidnila kareem casharada ku xiga sida waxyaabaha grouping loogu sameeyo ama la isugu geeyo ama in casharkan ku darayaa ila qurux badan xooga laakiin dhib malahan casharkan u dheeranayaa qaybaha dambe aan ku baran doonaa halkan safkan dheer sidaad isaga xalin lahayd oo aad grouping uga dhigi lahayd wax kasta oo group ay ugu socon lahaayeen insha Allah bidnila kareem casharka dambe aan ku baran doonaa hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh